gabar Soomaaliyeed isla markaana ka tirsan aqalka Koongareeska ee dalka Mareykanka oo wareysi siisay BBC-da ayaa waxay sheegtay in khilaafka kala dhaxeeya Trump uu salka ku hayo khilaafka Trump kala dhaxeeya muslimiinta iyo dadka soo galootiga haweenka iyo dadka madowga. Ilhaan waxay sheegtay in ayada ay mas'uuliyad ka saaran tahay muslimiinta iyo dadka qaxootiga maadaama iyadu muslim tahay isla markaana Mareykanka qaxooti ay ku tagtay. ayaan dhaxdaasaytii waxaan ka hadlaynay Afrika dhan guud ahaan aniga su'aalahaygu dhan waxay ku saabsanaayeen waxaan ka hadlay dhalinyarada tirada badan oo Soomaaliya iyo wadamada Itoobiya iyo qaaradoo dhan ku nool iyo Afrika oo dhanba oo boqolkiiba ilaa iyo 60 boqolkiiba ilaa iyo 70 ay yihiin dhalinyaro aad u da'yar sidii aan uga shaqayn lahayn shaqo in loo suubiyo fursado loo siiyo viisayaalka ay wadankanayda ka heli karaan exchange-ga aan suubin karno marka waqtiyaal badan aan ka hadlaa dadka laakiin iyaga aanan xiiseynaynin oo arkin joornaaladana hadda badanaa ma soo qorayaan markii aan Soomaaliya waqti aan gelinayo ama aan ka hadlaayo waxay jecel yihiin iyaga in aniga ay iga dhigaan in wadanka dagaal aan ku wado marka badanaa waxay raadinayaan waxyaalo dadka kale ay fahmayaan laakiin hana Soomaaliya ka hadashay ma noqonayo news marka idinkoo kale inaad fursado siisaan waaye markii aan ka hadlayno oo aan u advocate gareynayno Afrika taakuleynta la gelin lahay Soomaaliya. Ilhaan oo xaafad ka mid ah magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka kula hadlaysay qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ayaa sheegtay in halis amni ay wajahayso isla markaana uu ka dambeeyo madaxweyne Trump. halistaas waxaan u maleynayaa in dadka badanaa ay dareemi karaan in sida madaxweynaha uu u hadlaayo in ay keentay dadka badanaa oo hadda xabsiga ku jiro oo daraaday loo xiray oo rabay aniga inay idilaan kulligood waxay dhaheen madaxweynaha aan taageersanahay oo madaxweynaha magaciisa aan ku hadlaynayo madaxweynaha magaciisa aan rabnaa in aan Ilhaan ku dilno laakiin haddii aan si kaleeta aan u fiirino madaxweynahanaydi dadka aniga aan matalo nafsadooda badankood uu halis geliyay muslimiinta sidii uu noloshooda inta ilaa iyo wadamada kaleeta dadka ka soo ordayay halis buu geliyay wuxuu suubiyay muslim ban oo suubinaya in dad muslimiin ah wadamada ay ku rafaadsan yihiin in fursad u heli karin wadankaanayta inay imaadaan waa aragtay halista uu gelinayo dadka qaxootiga ah hadeertaan oo wadanka rabaan inay soo galaan halista uu geliyay dadka madowga ah iyo dumarka sida uu uga hadlo halista ay keenayso marka waa qof aanan ka fikiraynin hadalka uu isticmaalayo. dhanka kale Ilhaan waxay ka hadashay duqeymaha Mareykanku uu ka fuliyo Soomaaliya gaar ahaan diyaaradaha droonka ee mararka qaar dad shacab ah dhibaato ka soo gaarto duqeymahaasi. Axmed Cumar Galmudug TV